ताज्जुब भी होगा। assalaamu calaykum. filimkii cusbaa ee fikram fiidha ee ay matalayeen jilayaasha kale ah Hrithik Roshan, Saif Ali Khan iyo Radhika Apte, waxaana filimkan agaasimo ka ah Pushkar iyo Gayatri. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar, gambaleelkana furo oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan channelkeena wararka aflaanta. muuqaalkana like saar, aad baad u mahadsan tahay. haddaba filimkan waa dib u samaynta filim kaamil ah oo la yidhaahdo Fikram Fiidha, waxaana la daawaday filimkaas 2017 waxaana matalayay jilaaga Vijay Sethupathi. haddaba markii la sii daayay teaserka filimka, waxa uu noqday filim lagu qancay oo dad badan soo jiitay. warbixino ka soo baxaya dalka Hindiya ayaa sheegaya in markii hore filimka loo soo bandhigay Aamir Khan, balse markii dambe loo dhiibay Hrithik Roshan. waxaana filimka lagu sameeyay miisaaniyad lacageed oo lagu qiyaasay 175 karoor. sideen hore u soo sheegnay, filimkan wuxuu soo bixi doonaa oo la daawan doonaa 30 bisha Sebteembar 2022. asxaabteeda qaaliga, aad baad u mahadsantihiin. muuqaalkana like-ta ka ilaawina, asxaabtiinana u sii sheeri gareeya. waynooya muuqaalka xiga ee xiisaha leh insha Allah.